السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشركن waxaan ku baran doonaa qaabkeed la soo degi lahayd MySQL Server iyo MySQL Workbench. Talaabada koobaad waxaad samaysaa soo fur browserka isticmaalayso tusaale Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome hadba browserka isticmaalayso tusaale waxaan soo furay imika Microsoft Edge ayaan soo furay anigu. Markaad browserka soo furto waxaad xagga sare URL-ka ku qortaa www.mysql.com ka bacdina enter sii. wuxuu ku keenayaa website-kii maxay shirkadda MySQL. waxaad timaada meeshan ku qoran tahay downloads ayaad click siin doontaa. markaad downloads click siiso hoos u soo scroll gare ama hoos soo dhaadhac waxaad timaada meesha ku qoran tahay MySQL community gbl downloads button click sii ama waxaad click siisaa muuqaalka aad downloadso linkiga ku hoos jira. waxaa kaloo click siisaa maxay marka halkan ku keeno MySQL community server isaga ayaad click siin doontaa. marka isaga click siiso halkan ayaaba uu ku keeni doonaa. halkan marka ku keeno halkan waxaad ka dooran doontaa marka operating system ka aad isticmaalayso waxaad isticmaalaysaa Windows waxaad isticmaalaysaa Linux, Ubuntu, Debian, Red Hat, Fedora, Mac baad isticmaalaysaa. inagu waxaan ku deenaynaa Windows maadaama nimka isticmaalno Windows machine. okay marka Windows ku deeno waxa la weydiinayaa sidoo kale versionka aan isticmaalno. marka hadda waxa u dambeeyay 9.0.0 oo ah innovation. waxaa sidoo kale jira 8.4.1 oo ah LTS ama long term service channel. kan ayaan dooranayna inagu kan 8.4.1 ka si aan isku mid u noqono. kan hadda buu soo baxay weli waxa ku socda development. sidoo kale changes badan inuu ku yimaado ayay u badan tahay kan balse kan ayaa mar walba aan isbedel ku yimaanayn 8.4.1 ka. waxaan dooranaa marka ma waxa doonaysaa 64 bit inaad la soo degto mise waxa doonaysaa 32 bit. labadaba uu wataa marka waa 64 bit iyo 32 bit oo 32 bit ku waa times 86 kaas ayaa ah 64 32 bit 64 bit oo read waan garanaa waa architecture-ka. labadaba uu kula socdaa just inagu waxaan odhanaa maxay kan horeeyaan download ku dhufanaa. download marka ku dhufano daaqadan buu ku soo saaraya. inagu waxaan ku dhufanaa marka wuxuu naga rabaa inaan login nidhaahno ama account aan samaysano. inagu waxaan odhanaa no thanks just start my download button-kan ayaan click siinanaa. markaan button-kan click siino wuxuu hore ka bilaabi doonaa download-kii. haddii aad IDM isticmaalaysana IDM-kii baa hore kaga bilaabi doonaa. haddii kalena marka wuxuu ku bilaabi doonaa download-kii. marka waxaan arkaynaa inaan la soo degno MySQL 8.4.1 version-ka ah. marka waqti yar buu qaadanayaa waan suganaa intaa uu inoo dhammaystirayo. waa 129 MB oo kaliya. waa uu inoo dhameeyay download-kii. waxaan tegaynaa marka waan iska xidhnaa browserka waxaan soo furanaa file explorer-ka markaan soo furno waxaan tegaynaa downloads folder-ka markaan tagno waxaa halkan inoogu jira marka setup-kii aan hadda la soo degnay. double click ayaan siinanaa ama 2 jeer baan click siinanaa. waxaan iska xidhanaa marka file explorer-ka. okay qaabkan ayaaba kugu soo baxaya. waxaad click siinaysaa marka next markaad click siiso waxaad odhanaysaa marka I accept the terms and the license. next baad click siinaysaa. next markaad click siiso wuxuu ku weydiinayaa dhowr option oo aad ugu shuban karto. waxaad doonaysaa typical waxaad doonaysaa custom mise waxaad doonaysaa complete. haddii aad doorto typical wuxuu kugu install gareynayaa programska common-ka ah iyo featureska common-ka ah ee lagula talinayo qof walba oo isticmaalaya. custom haddaad doorato waxaa lagu shubayaa programska aad adigu doorato adigaa si maalin walba u dooranaya. ka ugu dambeeya complete-na dhammaan featureska iyo waxyaabaha lagu isticmaalo oo dhan ayaa uu kugu shubayaa laakiin wuxuu ka qaadanaya maxay more disk space. okay typical baan doorananaa. waxaan ku dhufananaa marka install user account control ayaa soo baxaya. yes baad ku dhufanaysaa. yes markaad ku dhufato okay daaqadan ku soo saaraya run MySQL configurator baan ku deenaynaa.
tigta kabacdina waxaan ku dhufanaa finish markaan ku dhufano wuxuu ku weydiinayaa user account control kan buu aqbal ku oranayaa yes baan ku dhufanaa yes markaan ku dhufano wuxuu inoo soo saarayaa markaa screen kan ama daaqadan buu ku soo saarayaa daaqadan waxaan ku dhufanaa markaa next waan ku daynaa kana next baan ku dhufanaa again waxaan ku daynaa configuration type ka development server waad ka dhigan kartaa laakiin just inagu development computer baan ku daynaa kana waa boardkii laga soo xidhmayay next baan ku dhufanaa next markaan ku dhufano wuxuu ku oranayaa waxaad samaystay user account gaar ahaan root-ka password-kiisa geli buu ku oranayaa just waxaan gelinaa markaa password ayaan gelinaynaa password-kii aan geliyay wuxuu ku leeyahay waa week anyway waa inaad password aad xasuusan karto gashato waxaan ku dhufanaa add user button add user ayaan click siinanaa wuxuu ku oranayaa user kan magaciisa geli ama username-kiisa waxaan oranayaa user kani waa admin role-kiisuna waa database admin password-kiisuna maxay waa password-kii aan soo samaysanay ayaan ku celinaynaa password kabacdina waxaan oranaa markaa okay ayaan oranaa wuxuu inoo sameeyey markaa maxay database role ama database user buu inoo sameeyey role-kiisuna wuxuu ka dhigay markaa admin okay next baan ku dhufanaa next markaan ku dhufano wuxuu ku keenayaa screen-kan waxba kama bedelino wuxuu ku leeyahay markaa next ayaan ku dhufanayaa haddaad kan tigta ka qaado mar walba oo aad computerka soo daarto waxa qasab noqon doonta inaad serviceska soo furto oo aad markaa MySQL aad si manual u start garayso balse haddii aad tigta ku dayso markasta oo aad soo shido computerka ama aad damiso dib u soo daarto MySQL-na automatic buu u soo daarmi doonaa marka waan ku daynaynaa tigta waxaan odhanaa next markaan idhaahdo waxaan siinaynaa markaa full access ayaan siinaynaa qofkan ama userkan next baan odhanaa wuxuu ku leeyahay ma kugu soo daraa sample databases uma baahnin just next baan iska odhanaa next markaan idhaahno waxaan odhanaa button execute markaan idhaahno okay waa inoo dhammaystiray marka uu tigta ku wada saaro waxaan ku dhufanaa next markaan ku dhufano again waxaan ku dhufanaa finish ayaan odhananaa hadda waxaan ku duubnay marka computerkeeni MySQL workbench ayaan ku shubnay MySQL server ayaan ku shubnay okay marka computerkeeni hadda waxaan ku shubnay MySQL server ayaan ku shubnay haddaan soo furno halkan oo eegno waxa inoogu jira maxay MySQL server ayaa computerkeeni inoogu jira sidoo kale waxaad ku hubin kartaa in aad soo furto serviceska computerka serviceska markaan soo furno waxaan teganaa m ayaa taabanaysaa keyboardka m ayaa taabanaysaa kabacdina waxaad arkaysaa MySQL gaar ahaan versionkan isticmaalno 8.4 in uu inoogu jiro uu waliba yahay running ama uu shaqaynayo si aan u isticmaalno markaa MySQL serverkeenan waxaan u baahanahay interface aan ku isticmaalno interface waxay noola socda maxay MySQL command line oo aan isticmaali karno sidoo kale waxaan isticmaali karnaa terminalka computerkeena ugu jira balse waxa intaaba ka muhiimsan adigoo isticmaala workbench marka waxaan la soo degi doonaa mar labaad barnaamij labaad oo loo yaqaano MySQL workbench oo ah graphical user interface loo isticmaalo MySQL serverka waxaan soo furanaa markaa mar labaad browserkeeni waxaan mar labaad search garaynaa maxay www.mysql.com website-ka ayaan mar labaad galanaa markaan mar labaad galno website-kii waxaan tegaynaa downloadska ayaan ku noqonanaa downloadska markaan ku noqono hoos baan u soconanaa waxaan imananaa maxay MySQL community downloads waxaan imananaa halkan oo ay noogu jirta MySQL workbench click ayaan siinanaa markaan click siino waxaa ku soo baxaya markaa maxay installerkii waxaan ku dhufananaa markaa maxay download ayaan ku dhufananaa and then waxaan ku dhufanayaa no thanks just start my download waa steps lamida stepskii kii hore isna wuxuu hore ka bilaabi doonaa markaa downloadkii oo waxa uu soo dejin doonaa MySQL workbench
waqti yar buu qaadanayaa waa 41 MB in yar baan sugnaa markaa inta uu dhammaynayo. Okay, waa uu inoo dhamaystiray isaguna hadda waa inoo dhameeyay. waxaan sameynaa mar labaad browserka iska xidhanaa, waxaan tegaynaa file explorer keeni, waxaan tegaynaa markaa downloadska markaan nimaad waxaa halkan noo soo galay mar labaad MySQL Workbench Community 8.0 isagana laba jeer ayaan click siinanaa. laba jeer click siino waxayna leeyahay markaa user control kii baa soo bixi doona, user account control kii. Next ayaan odhananaa, next and then complete ayaan ku daynayaa, next ayaan ku dhufananaa, install ayaan markaa aan odhananaa. Okay, user account control kana ku soo baxaya, waxaad ku dhufanaysaa markaa maxay? Yes ayaad ku dhufanaysaa. Yes markaad ku dhufato waxa uu inoogu duubi doonaa computerkeeni markaa maxay? MySQL Workbench. MySQL serverna already waa aan ku soo duubnay. Okay, isaguna waa inoo dhamaystiray. waxaan tigta ku daynaynaa halkan launch oo micnaheedu tahay noo soo shid, kabacdina waxaan odhanay finish markaan idhaahno waxay noo soo furmi doonaa markaa MySQL Workbench oo ah graphical user interface laga maamulo databaseska kala duwan. Okay, waa kan qaabkan ayaabaa inoogu soo baxaya. wuxuu automatic u detect karaynaya ama soo qabanaya marka serverkii noo daarnaa ee MySQL serverka aan markii hore soo install karaynay. isaga ayaan click siinanaa. markaan click siino wuxuu weydiin doonaa markaa passwordkii aan akoonkan ku gelinay. waxaan gelinayaa markaa passwordkii aan hore u soo samaysanay. waxaan odhanaa markaa okay markaan idhaahno haddii uu errorka ku soo saaro continue anyway ku dhufo. ugu dambeyn waxaa ku soo baxaya markaa maxay? screenkan markuu soo baxo that means waxaad computerka ay ku duubtay MySQL Workbench, sidoo kale MySQL serverkiina waa ay wada shaqaynayaan. si aan u hubino waxaan sameynaynaa halkan waxaan ku qoranaa command loo yaqaano create database. waxaan bixinaa markaa tijaabo. inta markaan qorno waan highlight garaynanaa, waxaan ku dhufanaa buttonkan ayaan click siinanaa. markaan buttonkan click siino haddii aan xagga nimaadno ay ku qoran tahay schema markaan nimaadno halkan aan refresh nidhaahno waxay noo soo galay database loo yaqaano tijaab ayaa noo soo galay. marka MySQL server iyo MySQL Workbench labaduba waa ay ku shaqaynayaan.